sanadkii hore tiradu way sii kordhaysay gaar ahaan Nairobi waxaana arkaysaa inay joogaan aad bay ugu nugul yihiin khatar kasta kooxdu waxay u safreen Tanzania halkaas ayay kula kulmeen wariye Florence Majani waxay sheegtay in dadka wax tahriibiya ay beegsadaan qoysaska saboolka ah iyagoo u ballan qaadaya caruurtooda nolol wanaagsan intooda badani waxay ku nool yihiin nolol faqiir ah iyo xaalad aad u liidata markaas ay imanaysaa fursad ah inay Tanzania laga kaxeeyo oo Nairobi la geeyo waxay u maleeyaan in caruurta la taageerayo waxay la soo laaban doonaan maalmaha ka mid ah iyagoo wata lacag xoogaa ah qoyskan ayaa 2017 ilmahooga naafada ah u dhiibay kuwa wax tahriibiya kurwa waxay ahayd 9 jir ilaa iyo hadda war lagama hayo waxaa dhibaato aad u xun loo geystay hooyadeed aad ayay u qaldanaayeen in ay kaxistaan Farah ayaa ugu dambeyntii u sheegay Africa Eye in si joogto ah loo garaaco